wasiirkii dhaweed ee soo booqday Somaliland maalintii dhaweed oo sheegay in ay Somaliland xorriyad u baahan tahay inay ka go'an tahay inay wadan noqoto oo Soomaaliya ka hoos baxa. ciidan 5,000 kor u dhaafayo oo Turkiga soo tababaray oo Soomaaliya maanta ka soo degay ciidamadan oo halistooda leh oo tababaran sidaasi oo cadawga wadanka ka hortagayo. annaga ummadda Soomaaliland waxa kaliya ee laga dhaxeeyo waa wadada Islaamka. wadanka Mareykanka gobolka Minnesota Soomaalidu u badan yihiin bannaanbixii iyo dhibaatadii ka socotay ee maanta Soomaalida dadkii bannaanbaxayaasha qabowga sambuus iyo shaaxiyo caana u qaybiyeen ayna ku dhaheen tani waa dhaqankayaga. halkaasi aad iyo aad dadka ugu farxeen sambuuskiina qaabka loo boobayo wadiga ujeedo aad buu macaan waan filayaa inkastoo anigu aan dhadhamin macaankiisana waxaa noo sheegaya wiilkii caddaanka ee cunay sambuuska Soomaali. One of my favorite things about growing up in Minneapolis, being born in the 90s, right next to Carmel, is all of the Somali people that we have here. And huge shout out to the Abayos and the Hoyos that made this sambus. MashaAllah. wasiirka Somalilandarka oo sheegay Israa'iil wadankii koowaad ee aqoonsaday wuxuu ahaa Turkiga. si walba haddana isu khilaafaan Turkigu marnaba aqoonsigiisa ma kala laabto wadanka Israa'iil uu aqoonsaday wadan ahaan. asa ahaatee aniga Turkiga sheegayo dhahay diinta Islaamka isaguba danihiisu fiirsanaya anaguna tayda fiirsanaya. Israa'iil iyo Falastiin oo isku haysto dhulka say Falastiiniintu sheegayeen ama muuqaalkan iyo muuqaalo aad u fara badan iyagoo la dulminayo wadanka laga barakeynayo oo Israa'iil uu leeyahay dhulka anigaas kala adeer meeshan ka baxo iskiilow hore u soco. Hindiya oo looga baqayay inay aqoonsato Somaliland maadaama Israa'iil aad u dhowdahay balse ay Hindiya dhahday ilaaqad weyn baa anagu Soomaaliya leenahay waana ixtiraameynaa dhulkeena.